xumaan ma samaynayna taliye xumaan ma samaynayna والله ما الله ولا لا إذا كمان ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa baajiyay kulan faneed ay kooxda xidigaha geesku sheegeen inay gaar u qabsanayeen waxaana ciidamada booliiska Soomaaliland ay gudaha u galeen goobtii lagu qabanayay kulankaasi waxaana arintaasi saadagu uga hadlay gudoomiyaha kooxdaasi Maxamed Axmed Bakaal Cirro iyo xogayaha kooxdaasi Cabdiraxmaan Oday oo sheegay inay sanadkani wax ka bedeleen kulamadii hore ee bandhig faneedyada ay qaban jireen tan ay ahayd mid ay iyagu gaar u qabsanayeen iyagoo ka hadlayna waxa ay yiraahdeen anigu waa gudoomiyaha xidigaha geeska Maxamed Axmed Bakaal waxaan caawa halkan ka cadeynayaa aniga iyo kooxdayda xidigaha geeska oo dhameystiran in annaga oo barnaamijkii sanadka cusub qabanayna oo weligiiya qaban jirnay oo xaq u leh inaanu qabanno barnaamijka sanadka iyo iidahada oo kala qayb qaadana taageerayaasheeda waa waxa kaliya teen ku nahay fanaan inaanu ummadeeda qancino iyo taageerayaasheeda in xukuumaddu ay naga joojisay 12 habeenimo mid waxa weeyaan horta anagu muwaadiniin baan waddanka cid naga xigto waxa ayaan daraa in xukuumadda dhan ay ku mashquulsho 4 oday iyo qabiiliye reero oo fanka ummadda Ilaahay u dhaliyay ee dhaqanka ay u leedahay ku mashquulo weeyo awoodeeda Ilaahay nagama qaran ee qarankayga aan la xajaleysanaynaa annagoo tixgelinayna amarkii xukuumadda ayaa waxaan u baajinay inaan qabanno showga aan u qaban lahayn sida darteed waxaan ka door bidnay inay kooxdu qabato waraysiga looga bartay ee sanad lahayd maana dhigin show sida gudoomiyuhu sheegay waxaan uga baaqanay waa amarka xukuumaddu ay soo saartay inteedan baan ahayn xidigaha geeska oo cidi tarixin qolbaan hoosta ka soo xiranay waxaan noo yimid niman ciidan oo askar ah waan u sheegnay inaan show ahayn waxaan qabanayna waraysi yahay nalaguma ixtiraamin waddankana xaq baan ku leenahay dhammaan qof meel ka yimid naguma jiro waxaan Soomaaliland dhamaantayo cid marti dalka ku ay kuma jirto xukuumaddu haddii ay doonayso inay wax saxdo dalka musuqmaasuq baa ka jira waxa ka qabato 1 qabyaaladii kala qaybsanaanta waxa ka qabato 2 sixir bararka waxa ka qabtaan 3 tacliinta waxa ka bartaan waxa ka qabtaan maxaan ku raadaa amalaanta waxa ka qabtaan waxa jira bayraxyo badan oo ay waajib ku tahay qaranku inuu ku mashquulo oo qabto sida gudoomiyuhu sheegay sidii Soomaaliland qabiilada ay u raali geliso xukuumadda fanka u raali geliso aad aan u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xidigahan meel kasta dunida joogan waanu ka raali gelinaynaa waxyaabaha caqabad xumada ee kooxahana lagu la kacay mana ahayn wax qurux badan madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto mudane Muuse Bixi Cabdi waa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan madaxweynaha u faraynaa fariin mudane madaxweyne xukuumaddeeda inaan dhisno mooyaane wali naguma dhicin inaan dumino marka waxaan madaxweynaha ka codsaynaa iyo xukuumadda arinta fanka inay madaxweynuhu soo jeesto waan dhaleecaynaa wixii ka hor yimaada xukuumadda ma jecelin annaga difaacayna qarankeega si kastaba ahaatee kooxda xidigaha geeska ayaa ka caana geyga dhulka Soomaalida iyagoo inta badan soo bandhiga bandhig faneedyo kala duwan oo dadka Soomaalidu inta badan ay aad u xiiseeyaan arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli wasiirka diinta oo qaafta Soomaaliland oo maalinnimadii shalay ka hadlay xuska sanadka cusub iyo go'aan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ay hore uga soo saartay hoteelada iyo xilliga laga baxayo Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa